muuqaalka aad arkaysid ma aha Falastiin oo duqeyn ay ka dhacday halkani waa Muqdisho waxa dhulka lagu samay dhismo quruxdiisa aad la ina daraandari jirtay meel kasta oo aad cagta saarto waxa ka hor imaanaya dhagxaan burburtay haraadiga hub culus oo shabaab iyo dawladdu isku adeegsatay intii lagu dhex dagaalamayay hotelkan waa meel wax ka badan 24 saac oo xiriir ah dhawaqa kaliya ee laga maqlayo uu ahaa dhashiikaha AK-47 bom iyo hub kale oo daran qaybtan hadda aad arkayso waa barxadda hotelka meesha ugu muuq iyo qabadka wanaagsaneed ee hotelka waxa ku taalay dhir cagaaran waxa yaalay kuraas cad oo marka qofka uu fariisto loona keeno koob shaah ah oo dhaka jabiye ah uu markiiba afka furan jiray sheeko deganaanta iyo xasiloonada ka jirtay aawadeed halkan laakiin caawa waatan isku bedeshay meel burbursan oo nafta xitaa aan lagu aamini karin daqiiqadna hotelka intaan ku jirnay waxaan qolalka iyo dhismayaasha burburay ku aragnay calaamadaha dhiig dhulka daadsan iyo mid darbiyada ku firirsan oo u muuqda kuwa la isku dayay in aad loo nadiifiyo balse fuqi waay inta aan aragnay waa wax yar oo ka haray raadkii dagaalkii halkan ka dhaxdhacay ee u dhaxeeyay shabaab iyo dawladda waayo inta aan warbaahinta loo fasixin gudaha hotelka waxa la nadiifiyay xaalad kasta oo halkan ka jirtay si loo qariyo jabka qayb ahaan dawladda ka soo gaaray weerarka hotelkan weerarka ka dhacay wuxuu sababay burburka aad arkayso waxaana ku naf waayay tiro dad oo weli aan si rasmi ah loo xaqiijin tiradooda saxda ah kuwaas oo adduunka ku kali yeelay kuwii ay jeclaayeen saraakiisha jecel kaamirada in laga duubo wasiiro boolaxoofta badan iyo ciidan si xirfadaysan ugu guuleysan waayay inay howlgalkaas u soo afjaraan intii uu socday ayaa sida meel mucaawino lagu qaybinayo oo kale isugu shubay hotelka maanta shalay iyo maanta midna lama soo bandhigin meyd muujinaya raggii hotelka ka dhex dagaalamayay ee shabaabka ahaa tani waxaa lagu fasiray in raggu ay baxsadeen sida ururka shabaabku goor horeba ay sii sheegeen marka laga tusaale qaato howlgalladii hore marka dawladda ay soo afjarto waxa shacabka iyo warbaahinta loo soo bandhigi jiray muuqaalada rag dawladdu ku sheegi jirtay inay ahaayeen kuwii soo duulay balse kani ma dhicin si kastaba dadka qaar waxay dhacdadan ku beertay shaki weyn oo horeba loo qabay oo ah in wada shaqayn ka dhaxayso horjoogayaasha ciidamada iyo kooxda weerarka soo qaaday waayo sidee ku dhici kartaa ayaa la isweydiinayaa in haba yaraatee hal qofna aan laga arkin meydkiisa raggii 30 saacadood ka badan ka dhex dagaalamaya hotel Xayaat لو